gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baasha Maxamed Faarax oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay kalfadhigii golaha wakiilada Soomaaliland maanta u qabsoomay kaasoo ay kaga doodayeen xeerar uu soo gudbiyay madaxweynaha talada ka sii dhaadhacaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraayo xeerarkaasi oo ay ku jireen xeerka ciidanka bilayska asluubta iyo waliba duulista hawada iyagoona xildhibaanadu si adag uga doodeen ayaa haddana cod aqlabiyada oo gacantaaga ay ugu codeeyeen in lagu celiyo qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan saddex xeer sidii aad beesha ku maqaseen xeerka booliska iyo xeerka xabsiyada iyo xeerka hawada iyo duulista saddex xeer baa kula ansixiyeen guurtida uu soo maray madaxweynaha loo gudbiyay madaxweynuhu saddex xeer baa wuxuu ku soo sameeyay wax ka bedel sida sharciga dastuurka uu qorayana waxa weeye marka golayaashu xeerka u gudbiyaan madaxweynaha wuxuu xaq u leeyahay inuu 12 casho ku saxeexo ama wax bedel ku soo sameeyo marka madaxweynuhu wuxuu maray tii caadiga ahayd waxa weeye saddex xeerba wax bedel ku soo sameeyay xeerarku marka muddo badan bay golaha ka xiyeen waxa weeye madaxweynuhu markuu nagu soo celiyo waxa weeye soo jeedinta madaxweynaha goluhu inuu raaco haddii uu goluhu ku qanci waayo soo jeedinta madaxweynaha iyagoona geesta kale xildhibaanadu ka dooday xeerkii hore ay ugu gudbiyeen qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay koogii hore ansixiyeen gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo faahfaahinayana waxa uu yiri loo baahan yahay in 5 loo codeeyo marka 5 haddii loo codeeyo ay u codeeyaan xildhibaanadu waxa weeye xeerku sidii golaha labada kale kaga baxay waa in madaxweynuhu saxiixa haddii la waayo goluhu aqlabiyad inta ku ansixiyay oo 5 gaari waaya xeerkaasi waa dhimanaya way marka xeer cusub la soo sameeyo marka maanta sida arkaseen waxa weeye laba su'aalood baa la weydiiyay codayntii hore waxa ahayd ku qanacsantiin soo jeedintii madaxweynuhu soo celiyay waa diideen marka waxaa loo codeeyay tii caadiga ahayd in xeerkii labada kale gudbiyeen ay raacsan yihiin waxayna saddex xeer ku ansixiyeen majority-ga 5 marka xeerka soo jeedintii madaxweynaha waxaa loo celinaynaa madaxtooyada baan ku celinaynaa marka madaxweynuhuna waa inuu saxeexaa xeerkii booliska iyo xeerkii xabsiyada iyo xeerkii hawada iyo duulista wuxuu dhaqan gelayaa sidii golaha labada kale ay ku ansixiyeen marka intaas uun bay ahayd waxay ahayd diidmaka maahayna procedure-kii dastuurka iyo xeerarka geesta kale waxa gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baasha Maxamed Faarax uu sheegay in ay markii ugu horeysay ay tahay xeer ay ku celiyaan golaha wakiilada Soomaaliland madaxweyne isagoo mar kale amuurtaasi ka hadlayna waxa uu yiri waa markii ugu horeysay tii ugu horeysay way jiri jirtay oo way jiri jirtay xeerar in lagu celiyo madaxweynaha laakiin waxay u badnaan jirtay kuwa soo jeedintii ay ogolaadeen xildhibaanadu marka dhowr xeer oo waagi daahir yaale soo celiyay way jireen laakiin xeerarkan waxa weeye waa markii ugu horeysay Umar Shaafi telefishinka caalamiga Bulsha TV magaalada Hargeysa.